waxaa saaka degan xaalada deegaanka masjidka Cali Gaduud halkaasi oo shalay dagaal saacado badan qaatay ku dhaxmaray ciidanka dowladda oo garab ka helay dadka deegaanka. dagaal qaatay saacado badan oo ay bilaabeen dadka deegaanka sidoo kale ciidanka dowladda ayaa shalay ka dhacay deegaanka masjidka Cali Gaduud halkaasi oo hore uga sugnaayeen kooxda argagixisada ee Al-Shabaab. wararka haatan naga soo gaaray deegaanka masjidka Cali Gaduud ayaa waxa ay sheegayaan in ciidanka dowladda iyo Al-Shabaab ay ku sugan yihiin banaanka deegaanka isla markaana laga cabsi qabo in mar kale ay dagaalamaan. saraakiisha hogaaminaysa ciidanka dowladda ee deegaanka masjidka Cali Gaduud ayaa guul ka sheegtay dagaalkan ayaga oo sheegay in ay deegaan dhowr ah kala wareegeen ururka Al-Shabaab oo in badan gacanta ku hayeen kana dileen horjoogayaal dhowr ah. mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale saraakiil ciidan ayaa horkacay dagaalkan waxaana badi ahaanba deegaanka masjidka Cali Gaduud iskaga barakacay dadkii deegaanka kuwaas oo ka cabsi qaba inay waxyeello ka soo gaarto dagaalka labada dhinac ah. masjidka Cali Gaduud ayaa waxa uu kamid yahay goobaha muhiimka u ah kooxda argagixisada Al-Shabaab iyadoo aan halkaas u taalay bar control oo ay ku qaadi jireen lacagaha. masjidka Cali Gaduud oo ay gacanta ku dhigto dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay ka dhigan tahay in badi shabeellada dhexe laga saaray kooxda argagixisada ee Al-Shabaab. deegaanka aadan yabaal oo ah fariisinta ugu weyn ee shabeellada dhexe ay ku leeyihiin kooxdani ayaa qiyaastii 70 kiiloomitir u jira deegaanka masjidka Cali Gaduud oo ay haatan gacanta ku hayaan dowladda Soomaaliya. sidoo kale xogo lagu kalsoonaa karo oo naga soo gaaray gobolka Hiiraan waxa ay sheegayaan in saaka dhaqdhaqaaqyo ciidan oo xooggan ay ka bilowdeen deegaanada Jicibow iyo Soomaaliya iyo Moqokori halkaasi oo maalmo ka hor ciidanka dowladda ay kala wareegeen kooxda argagixisada ee Al-Shabaab balse ciidamada ka soo dhaqaaqay guud ahaan deegaanadaas ayaa waxa la filayaa inay ku wajahaan deegaanka aadan yabaal oo fariisin u ah kooxda maleeshiyaadka ee Al-Shabaab.